kusoo dhawaada Main Public News Connect akhbaaraadkii raadiyaha Main Public ka baxay isbuucii la soo dhaafay. kusoo dhawaada isku xirka Main Public haddaba waa wararkii ugu dambeeyay ee ka baxa raadiyaha ama idaacadda Main Public isbuuc walbana kugu soo gudbiya luqadaha kala ah Isbaanishka, Boortaqiiska, Faransiiska iyo sidoo kale luqadda af Soomaaliga. haddaba si bilaash ah uga daawo barnaamijkan Facebook, YouTube ama sidoo kale adigoo booqanaya mainpublic.org. waxaa kaloo naga heli kartaa TV-yada bulshada ay ku leeyihiin waa gobolkani Maine. haddaba waxaan ka codsanaynaa inaad barnaamijkan si taageerto. maanta sida caadiga waa Jimco, bisha Augustana waa 5-teeda. anigoo Cabdi Iftan ayaa barnaamijkan idiin sii daadihinaya. haddaba qodobada ugu waaweyn barnaamijka aan idinku hayo isbuucani waxaa ka mid ah xoojiyaha asagu loo yaqaano ama caabuqa COVID-19 kaasoo weliba ay ku jira ka hortagga qaybta cusub ee loo yaqaano BA5 ayaa la filayaa in la helo bisha soo socota ee waa bisha September. haddaba isuduwaha CDC-da ee asagu shakhsiga loo yaqaano Nirav Shah ayaa asagu sheegay in kuwa da'doodu ay ka weyn tahay 12 iyo weliba ay ka sii weyn tahay ay suuragal tahay inay ayagu qaadan karaan barnaamijkani ama talaalkani xoojiyaha ahi. laakiin wuxuu sidoo kale ku boorinayaa dadka ayagu iminka u qalma xoojiyaha labaad inay ayagu helaan sida ugu dhaqsiyaha badan oo aysan sugin qaybtan cusub ee soo socota. haddaba Shaw ayaa sidoo kale asagu sheegay in barnaamijkani ama qaybtan cusub ee shanta loo yaqaano ee Maine ku jirto inay weliba sababi karto caabuqa taasoo ah sababta muhiimka ay u tahay in xoojiyaha la qaato sida ugu dhaqsiyaha badan. arrimaha kale oo la xiriira caabuqa waa CDC-da Maine ayaa ayadu qaybteeda caafimaadka ayaa xaqiijisay kiiskii labaad ee asagu caabuqa loo yaqaano monkeypox lagana helay shakhsi asagu deegaan ahaan u degan koontada Penobscot. haddaba kiiska koowaad ayaa isbuuc hore asagu laga helay koontada waa loo yaqaano waa York. haddaba monkeypox-ka waa caabuq sababa nabaro weliba qandho iyo sidoo kale madax xanuun oo ay weliba ku jiraan ayaa la leeyahay calaamado kale. haddaba caabuqan ayaa asagu ku fiday ayaa asagu ku fida isu imaashaha sababi karta weliba in jirka asagu uu istaabto. haddaba isuduwaha CDC-da asagu shakhsiga loo yaqaano Nirav Shah ayaa sidoo kale sheegay in gobolka uu talaal xadidsan uu u hayo caabuqani cusub, waxaana weliba uu ku boorinayaa dadka in weliba caabuqani cusub ay ayagu ka feejignaadaan. haddaba kulliyadda bulshada ee Maine ayaa ayagu arkay kobaca ardayda isqoraysa iyadoo weliba ardaydu ay ka faa'iideysanayaan barnaamijka bilaashka ah ee gobolka uu bixinayo. Maine ayaa bixinaysa 2 sano waxbarasho bilaash ah kuwaasoo weliba la siinayo ardayda ayagu ka soo qalin jabiya dugsiyada sare waa sanadaha 2020 ilaa 2023. haddaba dhammaan arjiyada xilliyada deerta ayaa sare u kacay ilaa 111% markii lala barbar dhigo sanadii hore. haddaba sidoo kale madaxweynaha kulliyadda bulshada ee bariga ee loo yaqaano Liz Russell ayaa ayadu sheegtay in isqoristu ama ay korortay ay weliba u fiican tahay ardayda iyo sidoo kale shaqaalaha ama dadka shaqaaleysiya ardaydani markii ay soo qalin jabiyaan. shaqaalaha caanaha iyo sidoo kale taageerayaashooda ayaa jimcihii ku banaan baxay xarunta suuqa weyn ee Hannaford ay ku leedahay waa Scarborough ayagoo weliba weydiinaya shirkadani inay ku biirto barnaamijka loo yaqaano caano sharafeedka. haddaba barnaamijkani ayaa uga baahan shirkadda inay ayadu lacag badan ku bixiso wax soo saarka caanaha si loo xaqiijiyo weliba in shaqaalaha ay ayagu helaan guri ku filan oo ay degaan iyo sidoo kale marka ay xanuunsadaan inay ayagu heli karaan socdaal ama banaanbax xanuunka oo weliba misharkooda ay ku qaadanayaan. haddaba banaanbaxani ayaa waxaa soo abaabulay qolada loo yaqaano Migrant Justice oo ayagu saldhigooda uu yahay waa gobolkaasi Vermont, waana urur ayagu u dooda xuquuqda shaqaalaha ee beeraha. haddaba shaqaalaha magaciisa loo yaqaano Jose Ignacio ayaa asagu sheegay inuu rajaynayo in Hannaford ay ku raaci doonto arrintani ay wadaan sababtoo ah ayuu yiri marka shaqaaluhu isu yimaadaan waa inay ayagu baaqooda la maqlaa. halkani waa Main Public. sidoo kale waxaad anigoo Cabdi Iftan ee barnaamijkan idiin sii daadihinayay. haddaad ka heshay barnaamijkan fadlan waxaa ka codsanaynaa inaad like saarto weliba barnaamijka aad sii qaybiso
adigoo ku mahadsan taageerada aad barnaamijkan ku bixiso waxaad kaloo nagu ku soo beeri kartaa barnaamijkeena kooxda WhatsApp-ka ama sidoo kale midka isbuuclaha ah ama midka warqadda kugu imaan kara ayagoo weliba luuqado kala duwan ah haddaba had iyo jaaraale sida barnaamijkani aad ula socoto aad baan kaaga mahad celinaynaa tan iyo isbuuc dambe intaan barnaamij midkani la mid ah ku kulmi doono anigoo Cabdi Iftin oo idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo Main Public News Connect waxaa suurageliyey taageerida shakhsiyaad ganacsi iyo aas-aasayaasha dhammaan Main Co iyo Patricia Yuan Seaport Credit Union Suuqa Hannaford IDEX iyo Main Housing Main Public News Connect waxaa suurageliyey Co iyo Patricia Yuan kuwaasoo ay ka go'an tahay inay isu xiraan dhaqamada bulshooyinka kala duwan Juntos Ensemble Warajir Junto Seaport Credit Union Together Suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com Main Housing waa guri raaxo gurigu waa furaha Main Housing waxay u taagan tahay inay ka dhigto guriga meel diiran ammaan ah ayna dadku awoodi karaan booqo mainhousing.org si aad u hesho adeegyo ay qabtaan oo dhammaystiran